wacan daawadayaal waa mar kale iyo qayb kamid ah barnaamijka bayaanka danab. barnaamijka bayaanka danab waa toddobaadle aan ku soo qaadano warar sheekooyin iyo waraysiyo aan la yeelano taliyaasha iyo ciidamada kumaandooska danab ee u taagan sidii dalkeena Soomaaliya ay uga dhigi lahaayeen mid nabdoon oo xasiloon. barnaamijka bayaanka danab waxaa jimco kasta saacadu marka ay tahay 10 barqanimo aad ka daawan kartaa boggeena YouTube-ka ee bayaanka danab iyo Facebook-ga danab media. waxaad sidoo kale ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud iyo Radio Beledweyne saacadu marka ay tahay 3:00 galabnimo isla maalinimada jimcaha ah. barnaamijka bayaanka danab toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ciidanka kumaandooska danab waxaana kamid ah ciidanka danab oo burburiyay saldhigyada al-shabaab ka soo abaabuli jireen weerarada ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. cutubyo ka tirsan ciidanka kumaandooska danab oo tababar loogu soo xiray magaalada Gaalkacyo olole shacabka loogu wacyigelinayo khatarta cudurka COVID-19 oo ka bilowday gobolka Shabeellaha Hoose. waxyaabaha kale ee daawadayaal barnaamijka intuu hawada ka baxay aan ku soo qaadan doono waxaa kamid ah kaalinta ciidanka danab ee ka hortagida falalka marin habaabinta iyo ka been sheegida diinta Islaamka iyo sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa sida taliska ciidanka danab ay ugu heelayihiin badqabka caafimaadka askartiisa iyo bulshada Soomaaliyeed. barnaamijku intuu hawada ka baxay waxa idin la socodsiinaya anoo Shilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan. soo dhawaada mar kale daawadayaal. ururka toddobaad ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanada kale ah Gaaleef, Buurdheere, Mareere, Saabuun, Baarow iyo Madiinacde oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. waxayna ku burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab oo ay gabaad ka dhigan jireen. saldhigyada ay al-shabaab ka soo abaabuli jireen weerarada iyo qaraxyada ay geystaan sida uu sheegay kusimaha taliyaha guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure. taliyaha waxa uu intaasi ku daray in howlgalka lagu dilay 9 maleeshiyo oo ka tirsan argagixisada al-shabaab tiro kalena lagu dhaawacay. kumaandooska danab ayaa dardar geliyay howlgallada ka dhanka ah al-shabaab dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay. gobolada kale ay ciidanku horay howlgallo gaara uga fuliyeen waxaa kamid ah Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa bilaabay olole lagu wacyigelinayo halista cudurka COVID-19 bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga deegaanka Beledweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose. ololahan ay horkacayeen saraakiil ka tirsan ciidanka kumaandooska danab ayaa waxa shacabka loogu qaybiyay agabka looga hortago cudurka COVID-19 sida face mask ama afxiira. saraakiisha danab waxay sheegeen in tani ay qayb ka tahay waajibaadka ciidanka ka saaran ilaalinta iyo difaacidda shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. ololahan wacyigelinta waxaa ka horeeyay kormeer ay ciidanka danab ugu kuurgalayeen xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta deegaanka. ciidan ka tirsan ururka 6aad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ayaa toddobaadkan tababar loogu soo xiray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo xaflad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu soo afmeeriyay tababarkani ay ka soo qayb galeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka danab iyo mas'uuliyiinta deegaanka. tababarka ayaa muddo 3 bilood ka socday saldhigga ciidanka danab ee magaalada Gaalkacyo waxaana ciidanka la barayay fulinta howlgallada gaarka ah miina baarista iyo waliba waxyaabo kale oo muhiim ah. intii ay xafladda qalinjabinta socotay ayaa askarta dhameysatay tababarka waxa ay soo bandhigeen dowladad ka turjumaya wixii ay barteen. taliyaha ururka 6aad ee ciidanka danab Dhamme Cabdiladiif Axmed ayaa askarta qalinjabisay guddoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino wuxuuna kula dardaarmay inay wixii ay barteen ay kaga faa'iideystaan shaqada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. daawadayaal intaasi waxa ku eeg wararkii toddobaadka ciidanka sida gaarka u tababaran kumaandooska danab. wali waxa daawanaysaan barnaamijka bayaanka danab qaybtiisa saddexaad. daawade waxa naga xasuusina inaad rukumato isla markaana ku soo biirto bogga aanu ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab si aad ula socoto barnaamijyada cusub ee halkaas aanu soo galino. fasiraadda khaldan ee kooxaha xagjirka ay ka bixiyaan diinta Islaamka sida al-shabaab ayaa waxay keentay in dhalinyarada Soomaaliyeed la marin habaabiyo. hase yeeshee ciidanka danab ayaa ka shaqeeya in shacabka Soomaaliyeed la tuso in diinta Islaamku ay tahay diin nabadgelyo. kumaandoosta danab waxay xaqiijinayaan kamira dhalinta mabaadi'da diinta Islaamka ay u taagan tahay ee ah nabadda, naxariista iyo wanaag falidda. islaamku ma ahan diin rabshad ama argagixiso, waa diin nabadgelyo oo marnaba aan shaqo ku lahayn
falalka kooxaha xagjirka ee ka been sheego waxa ay diinta u taagan tahay sida uu leeyahay sheekh abuukar macalin maxamuud oo khudbadda jimcaha kaga hadlay islaamka iyo nabadda iyo doorka danab ee ka hortegidda fikradaha marin habaabinta ee kooxaha xagjirka. Falilah alxamdu dawladda waa soo jeesatay magaalooyinka khudbadaha waa ka midaynay dugsiyadooda waa ka warhaynaa fikirkaas xagjirka inuu kusoo dhuntaan ka ilaalinaa si ardada Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed jiilka soo koraay uga badbaadaan fikirkan qalafsan. annaga markii waxaan sameynay macallimiinta ayaan u yeernay waa la fadhiisanay waxaan dhahan wixii shalay ka horeeyay oo inta annaga imaan wixii aad sameey jirteen qasab ay ahaayeen cid in ku haysata ma laha laakiin wixii maanta ka dambeeyo fikirka noocaas cid dhiga soo aragno waxaan aragnaa inay argagixisada ka mid tahay. Sheekh Abuukar ayaa sheegay in fasiraadda qaldan ee diinta laga bixiyo ay sababtay rabshadaha argagixisanimada ku dhisan taasoo galaafatay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. hase yeeshee hadafka kumaandoosta danab ayaa ah tirtiridda fahamka qaldan iyo difaaca dalka dadka iyo diinta. maalin walbaba xoohay argagixisada waxay ku mashquulsanaan jireen sida dad ay u weerari lahaayeen ummad u dhibaatay lahaayeen ummad ay barbagaan ugu sameey lahaayeen. hadda laakiin falilah alxamdu gacan ku gambad ay ku jiraan. hadda gobolka aan joogno Shabeellada Hoose meelaha ay ka joogaan waa far ku tiris. Shabeellada Dhexena taliyihii ciidankii iyo howlgalaha ka socdo ayagana waxa waaye baacsigooda socdo. Soomaaliya waxaan rajaynaynaa mar dhow haddii alla eedmo inay wax la yiraahdo khawaarij ama shabaab la baxaano ama daacish la baxaan Soomaaliya laga afjar ayaan rajaynaynaa insha Allah taala. meelaha ciidanka danab ay ka howlgalaan waxa ay ka sameeyaan kulamo dadweyne oo bulshada loogu sheegayo in ay iska diidaan in waxa ay diinta islaamku nafartay laga been sheego. jamaacada dhageysanaysay khudbadda Sheekh Abuukar waxaa ka mid ahaa askar danab ka tirsan oo rajeynaya in fariinta khudbaddu ay xambaarsan tahay ay bulshada u gudbiyaan. khudbadaas waxay khudbad fiican oo meelo badan taabanaysay runtii waxa loo baahan yahay bayna ahayd maadaama ay tahay dadka in la ogeysiiyo wacyiga jira iyo marxaladda maanta la taagan yahay. khudbadu waxay ahayd khudbo oo waqtigii loo baahnaa dhacday weliba khudbada hay'adda sababtayda waxaan ilaahay aan ka rajaynaynaa dad tir badan inay ku soo hanuunaan. waxay ilaahay aan ka rajaynaynaa khudbada hay'adda khudbo oo lagu dheebsado bulshada Soomaaliyeed wax tir badan ka bedeshay in ay noo noqoto. doorka ciidamada danab ee ka hortagga fikirka argagixisanimada ku dhisan waa mid sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya. dadaalkooda ayaa dhalinyaro badan ka hor istaagay in la marin habaabiyo. taasi beddelkeeda waxa ay maanta dhalinyaro Soomaaliyeed u xusul duubteen in ay ka shaqeeyaan dib u dhiska dalkooda. ciidamada danab ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan waxa loogu taageeri karaa in xogta cadawga la soo sheego. dhalinyarada Soomaaliyeed ee la marin habaabiyay waa dhalinyaro aan naga go'in dad nala dhashay dad aan dhalnay dadna dhalay u badan yihiin amiiradan guudadka hoostooda ka soo hadlay oo inay dagaalamo aan rabin inaysan diin weydin waa u jeedin mashaariic wataane ilma adeeryaalo dhalinyaro tihiin waa in la khalday diinta barta ummadin dib ugu soo laabta. Sheekh Abuukar waxa uu dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku booriyay in meel looga soo wada jeesto kooxaha xagjirka ah lana gacan siiyo dadaalka kumaandooska Soomaaliyeed ee danab ee ku wajahan Soomaaliya oo nabad ah oo qof kasta uu ku faano. si kastaba ha ahaatee waxaa xaqiiqo ah in danab kaalin wax ku ool ah ay kaga jirto waxyaabaha bulshada Soomaaliyeed saameynta ku leh. tanina waa mid ka mid ah waxa kordhiyay wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa danab iyo shacabka. daawada waxa xaqiiqa in diinta islaamku ay tahay diin nabadgelyo. danab la'aanteed kooxaha xagjirku waxay sii wadi lahaayeen ka been sheegidda diinta islaamka. aynu eegno qodobka xiga ee barnaamijka bayaanka danaba. kumaandooska danab waxaa lagu tilmaamaa ciidan xoogan leh adkaysi iyo caafimaad dhammaystiran. bayaanka danab ayaa warbixintani ka diyaariyay adeegyada caafimaad ee helaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab iyo adeegyada caafimaad ee bilaashka ee ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed. ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee danab waa kuwa caafimaadkooda iyo badqabkooda jir ahaaneed aad looga taxadaro oo si gaar ah loo daryeelo, taasoo u sahasha in waqtiyada howlgallada iyo tababarada ay guul weyn soo hoyaan. xafiiska danab ee caafimaadka
waxa uu ku dadaalaa hubinta iyo la socoshada caafimaadka askarta dheelitirnaanta cuntada ay cunaan iyo sidoo kale jirdhiskooda ciidanka kumaandooska danab hadda markaan kusoo biiray caafimaadkooda wax badan aan ka bedelay haddii ay tahay la tacaalida dhaawacyadooda haddii ay tahay talasiinta ciidanka iyo weliba qaabka ay macnaha ay uga hortegi lahaayeen cudurrada faafa ama ay noqon lahayd waxyaabaha oo sidoo kaleeto sidii qofkii fisikaalkiisii iyo wixii uga shaqayn lahaayeen waxyaabahaas oo kusoo kordhiyey intaas in ka badan inaan kusii kordhiyo kor sii qaadana weli diyaaran ah laba xidig leh Dr. Xasan Maxamed Maxamuud wuxuu mar kasta la talin caafimaad siiyaa askarta danab oo uu ku qaabilo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee ciidanku leeyahay si isku mid ah ayay askarta wiilasha iyo gabdhuhu u helaan adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo talooyinka la xiriira caafimaad ahaan qofkaas inta badan aan siino waxa kamid ah inuu qofkii macnaha isku dheelitirnaato cunadiisii iyo tababarkiisii waxyaaba inta badan aan ku dadaalno taas kamid salaan waxa jirta sometimes ciidanka oo kale in bariis qalan oo kale waxyaaba lamada la siiyo qofka inuu fiiskal ahaan ma dhismi karo cunadii la siin lahaa inay noqoto cunno balansiya oo qudradii leh oo hilibkii leh oo kalluunkii leh wax walba oo jirkiisa faa'iido nooc u leeyahay in loo sameeyo la siiyo laguna taliyo qaabka uu isticmaalo askarta danab waa kuwa u furfuran oo qaata talooyinka dhakhtarkooda iyagana waxay weydiiyaan dhakhtarka waxyaabaha ay tahay inay sameeyaan si ay u joogteeyaan caafimaad qabkooda tani waxay keentay qubad iyo firfircooni u sahasho inay si fudud u howlgalaan oo ay ku guuleystaan howlgallada gaarka ah ay fuliyaan aad iyo aad howlgallo badan ka soo qayb qaatay sida Kismaayo Boolgaduud 35 cunug la afduubo jiray raggii oo ku halgamay oo gacan ku soo dhigeen isbitaal Beledoogle guutada commandos fadhigeeda taliskeeda 35 cunug qaarkood ayagoo waxba qabin ilaa dhaawacyo fudud maayo waan keenay waan daaweynay wacyigelinaan sameynay dadkooda lagu wareejiyay alxamdulilah haddana waxbana ma halayso dagaalkii beriilay aan kusoo dhaawacmay oo al-shabaab iyo dowladda marka qarax waxaa kusoo dhaawacmay gacanta qaraxa iga soo gaaray ciidanka commandoska ciidan awood loo baawar le waaye oo aalmiitada jecel tababarkan iyo cadowga sidii loo beegsan lahaa u foojigan taliska danab waxa uu ku dadaalaa dhaqaaleynta ciidanka haddii ay dhacdo in askari ku dhaawacmo furumaha dagaalka waxna looga qaban waayo gudaha dalka waxaa loo diraa caafimaad dhanka dibadda ah aadan u kar gareynaa xaaladooda waxa waaye 100% diiraddan saarnaa qofka hadii xitaa aan dalka wax looga qaban karin ilaa dibaddan geynaa sidii wax looga soo qaban lahaa waxaan ku dadaalnaa fiiskal ahaan inuu qof dhisan noqdo muuqaalka bulshada inuu soo jiidan karo dadka ciidanka waxay ka aaminsan yihiin inuu dad baabacsan oo waxba aan ahayn yihiin dadka inta badan aaminsan yihiin laakiin ciidan quwad leh awood leh oo wanaagsan oo bulshadiina aan dhibaateynin oo wax u qabanaysa aan haddana caafimaad ahaan caafimaad qaba dad oo balwad iyo darooga midna ay ka muuqato aan la isticmaalin inay yihiin aan ku dadaalnaa inta badan qaabkaasina ciidanka commandoska danab ay u yaalaan adeegyada caafimaad ee ay danab bixiso kuma koobno oo kaliya askarteeda hase yeeshee waxaa ka faa'iideysta shacabka Soomaaliyeed ee degan dhammaan deegaanada ciidanka saldhigyadu ay ku leeyihiin waxaa la siiyaa la talin iyo daaweyn bilaash ah Cabdiweli Cali Jaamac iyo Maryan Xuseen lama filaan ayay ku noqotay in iyagoo aan wax lacag ah bixin ay helaan adeegii caafimaad ay u baahnaayeen dhakhtarka markii aan la kulmanay arrintaas waan u sheegay oo uga qanciyay wixii aan isticmaalaha daawooyin iyo relief buu sameeyay daawadiina wuu isiiyay iyadoo lacag la'aan ah la isiiyay daawadiina waan qaatay sida xataa sida aan u cuni lahaa xataa waa la ii sheegay waana ku maasan tahay mataqaanaa xafiiskan noogu sameeyay inaan adeega ka helno si lacag la'aan oo bilaash waxaan isdhaayay lacag laga qaadanayaa isbitaalka maaragtay lacag keen dhiiqaadka keen cabiraadka keen wax walbo marka waxa waa lacag la'aan la yiri waa maaragtay si mufaajaca maaragtay yaa baa waxa lagu yiri daawooyinka ay qaado waa lacag la'aan waan lagu daaweynayaa laba xidig leh Dr. Xasan Maxamed Maxamuud dardaarankiisu waa danab iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda amni haddana mar kasta waxa ka go'an in shacabka laga taageero dhinaca adeegyada bulshada sida caafimaadka runtii tani waxay muujinaysaa in ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee commandoska danab ay bulshada Soomaaliyeed uga filan yihiin dhinac kasta guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya
qaybtii saddexaad ee barnaamijka bayaanka danab hamoganaan daawada inaad daawato barnaamijka kan xiga xusuusnow inaad rukumato boggeena youtube-ka ee bayaanka danab ku dhufo calaamada gambaleelka si aad ula socoto marka uu soo galayo barnaamijka toddobaad kasta wixii faahfaahina ee ku saabsan danab kala soco oo ka mid noqo kumanaanka ku xidhan bogga facebooka ee danab media bayaanka danab waxaa sidoo kale jimco kasta 3:00 galabnimo aad ka dhagaysan kartaa idaacadaha kale ah radio muqdisho radio kismaayo radio galgaduud radio baydhabo iyo radio beledweyne intaynu mar kale kulmi doono dhammaantood isku duuban waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana allah